islaamnimo lagu barbaariyay ku weynaaday rabana mustaqbal hadii la gaaro qof islaam inuu guursado ilmo islaam dhalo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو نكسن داود الميل كستواد أدونك كجوكتان هل كان نقد داون إنسان وبرهن يوتيوب كيولي بفيسبوك برهن جنال أنت وسعد برنامج كأننا قد بدأ أجوا وين وأتكو داون دونتان وحكمت والله قرح بنا إن هذه الشيء دعواه سميحة خليل أو كجوابتي بين أبوركي مالمهن برها بلشدة هستي أها إني عبدو جنياشة ayna ka tirsan tahay qolyaha loo yaqaan maasuuniyada sidoo kale maslax mideeye iyo umareen ayaa ayagana waxa ay uga soo jawaabeen qaab kaftan ah. haddaba Samiixa Khaliil ayaa waxa ay qaadatay taladeeni habeen hore ee ahaa sidii khamr suugaani oo kale in ay banaanka waxaan iska mariso ayna jawaab ka bixiso. qodobadaas iyo qodobo kale ayaa inta uu socdo barnaamijkeena ku daawan doontaan. barnaamijka waxa soo saara ka ah anigoo Burhan Ali Burhan Janaalna waa ka daawanaysaan. sida aad wada ogtihiinba waxa maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada la isla dhexmarayay hadalla ah in ay Samiixa Khaliil maslax mideeye iyo waliba umareen ay ka tirsan yihiin qolyaha loo yaqaan maasuuniyada sidoo kalena ay caabudaan shayaadiinta. wararkaas oo aan ka sameynay ilaa 3 barnaamij ayaa laba kamid ah waxa ay ahaayeen in aan si fiican uga waranay falanqa rasmiyana aan ka bixinay. sidoo kale fariimo ayaa waxaan meeshan uga diray 2 jeer Samiixa iyo waliba umareen iyo maslax mideeye. ugu horeyntiina aan ku bilawnay Samiixa Khaliil ayaa caawa waxa ay qaadatay fariintii halkan aan uga dirnay. sidoo kalena waxa ay been iyo barbagaanba ku sheegtay wararkii maalmahan baraha bulshada la isla dhexmarayay. haddaba waa tana hadalka Samiixa Khaliil. nin ayaa maalmahan dhan aniga iyo 2 wiil oo kale la hadalhaye waliba anigu ahaa marka hore kadibna 2 wiil oo kale ku soo daray oo igu dhahay inaa aniga ahay qolooyinka illuminatika oo micnaha shaydaanka ayaan caabudaa camal inaan aniga shaydaan caabuda camal. horta marka hore wax la imaanaysa maxaa fiican wax laga aqbali karo ama aad isleedahay dadku way ku rumaysanayaan inaan la imaatid qof islaam ah oo islaamnimo lagu dhalay oo dad islaam dhaleen oo dad islaam koriyeen fahamtay oo islaamnimo lagu barbaariyay ku weynaaday rabana mustaqbal hadii la gaaro qof islaam inuu guursado ilmo islaam dhalo horta waa laga qurux badnaa inaad aadid shaydaan waaye hadii ay aad islaheedna xoogaa ama macnaha la imo something wax different something different oo aad dhigi kartid dadka ha ku aaminaan anna views ku raadso waa laga qurux badnaa walaalo qaali inaad waxan la imaatid because qof oo waxa lagu leeyahay barta ku tumanaya ama wax diinta islaamka ka baxsan sameynaya haddana kula sheeganaya la ilaaha illa allah ayaad ku tilmaami karin adoo arkaya waxa uu sameynayo wax diinta islaamka ba totally ka baxsan inay tahay oo hadii la qabto kow inaad ka siisid ma ogiye oo aad jannada ku tagaysay ayaa lagu leeyahay la ilaaha illa allah hadii uu kula leeyahay ma dhihi kartid waa gaal. iska daa qof asturan oo xijaaban oo maanta dhan quraan akhrinaya oo maxay ahaydee diinta islaamka hortaagan oo diinta islaamka u dagaalamaya u hadlaya wax wanaagsan ma ogi wax xun afkiisa laga keenin dad cayneen dad ku dhaganayn samaada fahmin. marka qofka saabadii karinba waa gaal muwadaca kan ma fahamtay oo aad ku naargalaysaa. marka walaalo waxa ila qurux badneed inaad wax kale oo different la imaatid ama waxyaabo kale aan igu tilmaamtid intaad gaalnimo igu tilmaami lahayd ama shaydaan igu tilmaami lahayd waxaana tiri cadeen ayaan rabaa inaan keeno inay shaydaamaha illuminatic macnahooda ma taqaantaa. I wish you could know ina macnahaas aad taqaanta shaydaanka la caabudayo. dadka shaydaamaha caabudo waa dadka ugu taajirsan adduunka kow waa dadka ugu xun. Are you getting me? كل هذا شيطان عابد حنوم علينا وحياة بدن أيها لو أركي لها أي تاي إن الفرماجو كرسي سكولة دجالة مكلا يا
farmaajo kale inaan kursiga kula qabsado maanta ku riyoodo aan noqdo gabadha madaxweynaha keliya ee Soomaaliya ka noqotay walaalo ma waxay ka tahay maxay ahaydey qofkan macnaha ku caanbax gabadhan aniga horta qof kale shakhsigiisa kama hadli karo naftayda ayaan ka hadli karaa taasoo tahay inaan qof islaam ahay ahaani doonaa ilaa aan ka dhimanayo ma fahamtay sidoo kale Omareen iyo Maslax Mideeye oo hal meel fadhiya ayaa ayagana si kaftan ah waxa ay jawaab rasmi ah uga bixiyeen in ay ka tirsan yihiin qolyaha maasuuniyadda sidoo kalena ay caabudaan shayaadiinta haddaba waa kuwana شيطان باويك إلهي إنك بقو أنا ويقول خلطة اللي بحس إنك واني شاري وحبا معه سجود إذا دعوة الله ورقة كلا صار مسكين كير وكوميديان نيكن مركل يوم بول إسكا أورانا وضيك تا كيف بكيس نو في صوت ما وضيك تا ما مصلح مدي هو فنان او درابح وصوص يا كنا ما يعرف معقول لكن عمر مسكين يا الله مع الله لا يمناتي الاستعمال الله ما يستعمل يمناتي والله ما فهم يدهم ولدنا السجود بولي وضعت يسع السالي ويربح قال لي ليش يسوي والله محمد حرام يا رب سير على الله دمقرتي ما عارف يا شيخ خميس غير السلام عليكم قال الله marka kala saar dadka curadka waa fanaan habs rags iska tuuran karaya miskiinkaygan alla baa ku haya di masraxo ma iga dhawatay ما انا حكيها طبعا هرت المقال هراء بعض الفن hay سوى سميحة خليل محل ha horta gabadha هذا ما حكيها اسمع ما حكيها وطقعنا ما هذا الرجال hay المناري واحد يستاهل hay واحد وصقه صفا سنكفتنا kooxii xaafadaha بس كبرنا ha هذا اللي بناتك الله انا كنت افهم بسله wuu ciyaarayaa قني afturka maxamed musaacid Donald Trump la sirla waa gaarke wallahi xeer maslaxid عاصم ما ترطعون إذا بلاد ورما عندها نقول لها لا ولا بقابل حبس والله شو رايك مرقا ويجينا حلو هاي مريم بول هاي واحد حكم يقول يا دار هاي سميحة خليل هاي مسلح مسلح يا مسكين أمرين يا أمرين قلت أمرين مرقا سبحان الله شيخ محمد قدر شيخ محمد قدر والله ما في والله يقول مركا خميس أكيد أنا يلا ديك سجشتي أو تري في دقيقة نقول أخوة ما تستعملش يا ديتا هذا ورنا حشود نجح الشوط فريق بدنا بالوتر بري رمضان هاي كسون أنا قصون ugu dambeyntiina sida aan idin sheegay waxa caawa aan idin soo gelin doonaa programka ka dambeeya qaabka ay u shaqeeyaan qolyaha loo yaqaan maasuuniyadda sidoo kale fanaaniinta Afrikaanta ah ee ku jira waxaana ku maqli doontaan qodobadaas iyo qodobo kale oo ku saabsan qolyahan goorta ay soo bilowdeen ujeedka laga leeyahay ee qolyahan loo aas-aasay qofka hadduu galo maxaa looga baahan yahay intaasi oo dhan waxaad ku daawan doontaan barnaamijka xiga caawa fadlan haddii ay ku tahay markii kugu horeysay oo muuqaalkeena ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa marka hore inaad muuqaalka aad like noo saartaan aadna ka mid noqotaan kumanaanka kun ee ku xiran baraheena YouTube-ka iyo waliba Facebook-ga waxaan idinkaga tagayaa Ramadaan Mubaarak inta afurtay waxaan leeyahay afur wanaagsan inta aan afurinna ilaahay afurka caafimaad ha idinku gaarsiiyo